gabadhaani oo lagu magacaabo Eelaha ayada masquush ku jirta dhaqanaysan wajiga ay hamar isku fiirinaysa maraayada isla markii baxaq soo muuqanaya odaygaani markaasi ay guriga wuxuu bilaabayaa inuu dumo oo kala tagtay isagoo idin kaas ay indhaha kala qaadaysa waxaan arkaysaa inay ku jirto masquul qalata oo aysan wiligeeda galin wiligan waxa ku jiray odaygaani lagu magacaabo Gabriel markaasi ay Eelaha waxay dareemaysaa cabsi iyo argagax aad u farabadan mar ahaan taasina gadaasheeda xaq soo muuqanaya qof mugdi ah haddana mar kale Eelaha joogeeda waa uu isbedelay waxayna is arkaysaa ayada joogto guriga ay degneed oo dabaqa ah sidoo kale waxay arkaysaa madaxeeda inuu ka socdo dareere casaan ah waxayna maleynaysay in ay riyo ahayd laakiin waxyaabaha riyada ku aragtay oo idil waxay noqdeen adigana daawada ha ilaabin muuqaalka in like inoo saarto maalintii xigtay ayaa saraakiil booliis ah waxay heleen wicitaan welibana ayagoo la dhahayo qof ayaa la dilay waxaana soo wacay qof nadiifiye ah yacni nadiifiyihii ayaa wuxuu helay meedka wuxuuna u sheegay booliiska markay booliiska ay sameeyeen baaritaan weyn ayaa waxay soo ogaadeen in la dilay dhakhtarka ugu weynaa isbitaal gaar loo leeyahay iyo John ayaa wuxuu arkayaa sawir weliban gadaashiisa oo ku qoran yahay magaca Emily sawirkaasina waxaa ku sawiran gabar yar oo aad u qurux badan wuxuuna askarigii u maleeyay gabadhaasi inay ka mid ahayd bukaanadii joogay isbitaalka sidoo kale wuxuu sheegay gabadhaas ayaa laga yaabaa in dhakhtarka rabtay inay ka argoorsato markiiba sawirka wuxuu u diray kooxda farsamada si ay u soo baaraan sida ay u kaan karto 30 san kadib gabadhaas Eelaha sidoo kale waxay aragtay riyooyin kale oo cabsi badan si oo ah nin iyo hoosmadu oo ka soo muuqanaya dhankeeda si qeelinaysa isla markii baxsi orda qolka soo galay walaasheeda Lucy walaasheeda Lucy waxay ku tiri waxaan arkay qof la dilay Lucy way la yaabtay walaasheeda isla markiina soo waday waxay u geynaysaa booliiska isla markii booliiska waxay u sheegaysaa sirtaasi oo ah inuu meel u yaalo markiina booliisku aaminaan soo helaan meedkii markaasi ay Eelaha waxay cadaatay riyooyinkeeda inay mar walba remoobaan laakiin ayada midaasi waxay ku beertay cabsi aad u farabadan maalin kale Eelaha waxay soo gashay masqusha welibana ayadoo rabto inay isku dejiso nalalkii oo masqusha ayaa waxay bilaabeen inay marna daarmaan marna ay damaan welibana ayagoo ka cabsinaya Eelaha markii telefoonkeeda ayaa la soo wacay waxaan ku qornaa unknown waa number private ah la aqoon markay qabatay telefoonka waxay ka maqashay cod cabsi leh welibana waxa loo sheegay magacaasi wuxuu ahaa Gabriel Eelaha waxay dareentay argagax waxayna ku jawaabtay magacaasi qof ayaan u aqoonay laakiin qofkaasi qofku yahay ma xasuusto isla mar ahaan taasna waxay dareemaysaa daadis jir wixii ka horeeyay oo xasuus ah oo idil inay iska ilowday farsamada booliiska sawirka waxay soo ogaadeen qofkaasi qofka uu yahay ahaantaan waxay sheegaan gabadhii yareed inay tahay Eelaha oo weynaatay welibana isla ayadii halkaas taagan ayay noqotay markaasi ay waxa la ogaanayaa Eelaha inay tahay Emily bukaankii hore isbitaalka joogi jiray si ay runtu helaan booliiskana waxay sameeyeen waxay u yeereen qof soo celiya qofka maskaxdiisa waliba qofka hurdagelinaya kuna takhassusay cilmiga hypnotistiga si uu Eelaha uga caawiyo inay xasuusato ilminimadeeda marka Eelaha la hurdageliya si lama filaan hamar waxay ku soo xasuusatay qof caruurnimadeedii magaciisa si joogto u maqli jirtay oo lagu magacaabo Gabrielna wuxuu ahaa cod madaxeeda ka dhex hadla oo had iyo jeer kula talin jiray waxyaabaha xunxun oo kaliya taa mar buu kula taliyay inay soo disho cunug yar oo caloosha hooyadeeda ku jira marna wuxuu sheegay inay mid soo qaadato kadibna ay keega jarjarto markay ku fikirtay inay midaas sameeyso dhankeeda soo socoto midadan ay soo qaatay hamar waxay maqlaysaa qeylo kadibna way joojinaysaa hawsha ay wado isla mar ahaantaan way soo xaysaa Eelaha markii ay ku jirtay hypnosiska jirkeedii wuxuu bilaabay gariir xoog badan sidaas darteedna waxa lagu qasbanaaday in la toosiyo kadibna la qabto laakiin waxa la yaabay ayaa waxay tahay Eelaha Gabriel ayadoo kaliya ay arki jirtay oo maqli jirtay cid kale ma aysan arki jirin booliiska sidoo kale waxay rumaysteen qofku wax dilaya laftigeeda inay tahay Eelaha mar ahaantaan waxay ku qasbanaanaan ayada inay qabtaan oo xabsiga ay geeyaan kadibna ay xiraan Emily walaasheeda Lucy ayaa waxay tagaysaa isbitaalka welibana ayadoo rabta inay soo ogaato runta Lucy waxay imaanaysaa isbitaalkii duuga ahaa mar ahaantaan meesha waxay keenaysaa faylka Emily sidoo kale meesha waxay keenaysaa canjalad duug ah markii ay daawatay canjalada waxa soo baxday runtii dhabta ahayd Emily hooyadeeda waxay uur yeelatay ayadoo jirta 15 sano cabsi darteed waxay dhashay Eelaha welibana ayadoo ku dhashay isbitaal gaar loo leeyahay kadibna isbitaalka ay aaga soo tagtay Eelaha jirkeeda baaritaan lagu sameeyay dhaqaatiirta waxay sheegeen jirkeeda inuu ku nool yahay nolol kale oo ayada u magacaabatay Gabriel welibana markaas waxay jirtay 7 sano Gabriel wuxuu ahaa ilmo labaad oo uurka ku jiray balse aan si buuxda u sameysmin sida mataano isku darsamay igana daawada ha ilaabin muuqaalka in like noo saarto qayb kamid ah maskaxdiisa ayaa waxay ku dhex sameysmantay jirka Eelaha dhaqaatiirtana waxay isku dayeen inay ka saaraan laakiin qayb kamid ah maskaxdiisa ayaa waxa lagu tolay jirka Eelaha taasina waxay keentay Gabriel inuu ku sii dhex noolaado maskaxda Eelaha ay soo weynaatay Gabriel wuxuu bilaabay jirkeeda inuu maamulo kadibna uu xukumo ibana isagoo raba inuu ogaarsado dhaqaatiirtii hore ee isbitaalka jooga jirtay ugu dambeyn Lucy waxay soo ogaatay runta balse nasiib daro Gabriel weli waa uu nool yahay wuxuuna weli ku dhex jiraa maskaxda Eelaha dambeyn Eelaha waxay ahayd gabar leh walaal uurka kula lamaan aan si buuxda u sameysmin kaasi oo lagu magacaabo Gabriel tirtii isku dayday inay kala saaraan dhamaantood way geeriyoodeen sababtoo ah Gabriel uu ka argoorsanayay markii dambe waxay ogaanaysaa Gabriel inuu weli ku nool yahay maskaxdeeda uu maamuli karo jirkeeda mar kale Eelaha waxay ku guuleysanaysaa inay xakamayso Gabriel uusan qof kale u dilin waxay ku dhamaanaysaa Eelaha iyadoo u muuqata qof degan Gabriel uu weli ku nool yahay maskaxdeeda